الحياة سكوليسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلية أنا جوا شعيب داهر إبراهيم كلامي معلن كاف سوماليجا وحنقول إني فصل كتضباط مادة أف سوماليجا وحنصور إنه عطل كي أفراد وحنقص صباحنا يجبيو آدو فربضان يولي بقى ما هي آدو كل الدول إما كنا وحنقول إنه عطل كي شناد عطل كشناد وحويان ما صدن الله يرحمه أنومبا هو يدايا ما صدن واحد تريي أبوان كيوينا محمد إبراهيم ورسامه حدراوي waxa uu abwaanku inoo sheegay in xurinta maasadani ay ku dhalatay kadib markii uu arkay dhalinyaradii loo hanweynaa oo kaalintoodii gabay oo xilkoodiina gudan la hooyose wax walba waa ay u hurtaa hooyo wax walba se waa ay u hurtaa waxa kale oo abwaanku inoo sheegay in barbaartii oo waalid caasi noqotay ay wali hooyadu duco la daba taagan tahay iyo dambi dhaaf ay ilaahay u weydiinayso iyada oo u beer nugul ilmaheeda walina ka samrin abwaanku waxa uu yiri hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhexyaad maansadan magaceeda waxa la yiraahdaa anuunba hooyadaaya macnaheedu waxa weeye anuunba hooyadaaya cid kale oo inoo hooyay ma jirto ilaa hooyadeenu mooyaane waayahay maasadan abwaanku waxa uu tiriyay markii uu arkay dhalinyaradii kala duwaneed oo markaasi ka soo bixi weyday kaalintii ay bulshada dhexdeeda markaasi ay ku lahaayeen abwaanku markaa waxa uu dhalilayaa sida ay dhalinyaradii ay kaalintii ay lahaayeen ay u gabeen hooyadu iyadu laakiinse xaalkeedu waxa weeye iyada og in ilmihii qalloocday dariiqii loogu talagalay saxdahaana oo markaasi magaransa uu ka halaabay haddana iyadu hooyo wali way u beer nugushahay ilmaheedii oo wali waxay la daba taagan tahay duco wali waxay la daba taagan tahay in ilaahay ay weydiiso inuu ilaahay ilmaheedii u soo hagaajiyo magaransa oo sidii loogu talagalay ilaahay uga dhigo awaankuna waxa uu leeyahay maadaama ay kaalintoodii gabeen maasada iyadoo ay nala sida tan hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhexyaal hunguri calaf baa xukuma haddii aynu idhaahno soo qaadano macnaha waxa weeye hunguri calaf baa xukuma qofku waxaasad cuni iyo waxaasad cabi midna la isma idhaahdo haddii aanad calaf ku lahayn markaasi waxan hantina dhaqan baa shushuba dadkana waxa dhexyaala ama wixii magaranaysa ayaga hayntooda ay dhexyaala ayuun bay kala qaadan karaan oo ay kala qaybsan karaan dadkana waxa magaranaysa maxay hadii jeer dadku waxay wax isku darsadaan dhaqan ahaan isir ahaan hayb ahaan iyo waliba dadka isku meel ah ee meel wada degani sida daraadeed ay dadku say wax isugu darsadaan wax la oran karaa dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhaxyaal macna inay wada qootaan wixii mar walba intii isku meel ah intii isku aaga intii isku bulshaa sida daraadeed maasadana inta way ka sii badan tahay way noo sii socon doontaa halka aynu ku joojinaa maanta wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.